xalay fiidkii waxaa la xaday madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo lagu ritay jawaan kadibna lagu qaatay gaari gacan mas'uuliyiin sarsare ayaa looga shakisan yahay ee ka mid yihiin Aweys Cali Baafo iyo Xasan Toob. wararkii ugu dambeeyay wanaagsan ayaa ah in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo la xaday lagu ritay jawaan halkeesa ku dambeeyaan Aweys Cali Baafo iyo Xasan Toob. maxay tahay sababta ay u xadeen madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Toob iyo Aweys Cali Baafo maxay tahay sababta keentay in la xado wararkii naga soo gaaray caasimadda Muqdisho ayaa ah in sanadkan uu sharaxan yahay Aweys Cali Baafo inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya. madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa ka mid noqday agabkii bilaqada waa arin mucjiso ah waana dalkii ugu horeeyay oo madaxweynahooda xadaan Aweys Cali Baafo iyo Xasan Toob ilaa haddirtaan lama oga halkii ay dhigeen madaxweynaha dalka Soomaaliya. run ahaantii way ku qaldan yihiin in ay xadaan madaxweynaha dalka Soomaaliya Aweys Cali Baafo iyo Xasan Toob professor ma kula tahay in madaxweynaha dalka Soomaaliya la heli doono goor uun hadii ay dhacdo halkan waxaan ugu baaqayaa Xasan Toob iyo Aweys Cali Baafo in ay madaxweynaha dalkan uu leeyahay soo celiya hadii kala talaabo sharci ah ka qaada ilaa haddirtaan lama oga halkii ay geeyeen madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Toob iyo Aweys Cali Baafo wixii waraan idiin halkan inoogu egyahay hadii madaxweynaha dalka Soomaaliya la helan waan idin soo gudbi doonaa.